برازيل. طبعا مركز برازيل تهديد قف كستو سوبوديا حورنا نيمار iyo kubadihii baa la xusuusanaya laakiin nagu waxaan ka hadlaynaa cryptocurrency. Neymar hadda ka hadli mayno laakiin waxaa laga hadlayaa cryptocurrency. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. walaalaha sharafta badan ee ku xidhan Somali Cryptofolio ee markasta supportkeena siiya, xayaakum allahu bayaakum. soo dhawaada. marka ugu horeysa ku saliya nabigeena xabiibkeena عليه أفضل الصلاة والسلام سيدو إلهي سبحانه وتعالى نهو أمري يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سوال كريبتوفوليو ويوتيوب كأد كيلي سيد حكتا انفورميشن كأخبارها كلا دوان اي كريبتو كارنسي كسابسا. الحمد لله رب العالمين وحنا أينو سمين إنه وح في عنوي أو خير أو دادك أنفعية بفكست أو كريبتو كارنسي كجنع الصدا ومهم وي إنه أخبارها الله سعوده. مركا إن شاء الله كنت دالا marka uu video gudin soo gaaro inaad like saartaan si ay dhiirigelin inoogu noqoto aynu videoska akhbaarta aan markasta u sameeyno insha Allah. haddaad nagu cusub tahay badhanka subscribe-ka dhac ku sii gambalelkana riix si aad ila socotid markasta asxaabtana la share gare. طيب khabarka ugu horeeya cryptocurrency kor buu socota baa la yiri mid kamid ah experts-ka ama muxalliliinta analyst-ka cryptocurrency-ga falanqeeya wuxuu yiri waa saadaal in cryptodu kor u kacdo. ninka la yiraahdo Jason Bizino oo la yaqaan oo analyst weyn ah cryptocurrency-ga wuxuu yiri cryptocurrency-gu waxay u socotaa dhawaan kor bay u socotaa markii la eegay suuqa historygiisii ee berigii hore iyo nidaamka ku socon jiray saadaashu waxa weeye suuqu inuu kor u carari doono. wuxuuna yiri labadii dowradood ama labadii round wareegii suuqa labadii jeer ugu dambeysay sidaas oo kale suuqu exactly u soconayay tii ayaa iminka inoo muuqata. khabiirkuna wuxuu yiri marxaladda ugu horeysa way dhammaan doontaa marka uu suuqu waadix inoogu noqdo oo ay dadka investorkii lacag soo geliyaan. taasna waxa weeye xamaasadii ayaa kor u kacaysa momentum fiican baa suuqa soo gelaya qof kasta wuxuu isleeyahay war suuqiisan ka cararin kriptada lacag baa la gelinayaa kadib waxaad arkaysaa baashii oo carartay. taasna waa wax waadax weeye oo mar kasta ku aragno suuqa. wuxuuna yiri bitcoin-ku kama soo daadegin level ka yar 25,000 ilaa waqti yar un bay ahayd laakiin price-ku ilaalinayay 6 bilood ee ugu dambeysay iminkana waa aragnaa hadda waqtigan aan videoga duubayo bitcoin-ku wuxuu ku wareegayaa 26,800 iyo xoogaa 27,200 intaas ku wareegayaa laakiin haddii uu lambarkaas soo taabto 28,500 waxaa laga yaabaa sida uu khabiirku sheegay inuu kor u cararo. khabarka ku xiga waa Hindiya. wuxuu yiri Hindiya marka la eego 20% cryptocurrency-gan adduunka ka shaqeysa caalamku dawladahan fara badan ay ku jiraan ka shaqeystaan. Hindiya waa number 2 yacni leadership-ka waxay maraysaa martabada labaad waa number 2 weeye waana 20% cryptocurrency-gan adduunka laga shaqeysto. Hindiya ayaa matalaysa 20% cryptada adduunka. marka waxa weeye waa arin yani dad badan ay ogeyn. waxaa la yiri dawladda India number 2 weeye laakiin markaad eegtid dad badan waxay yiraahdeen Hindiya ugu horeysa. reportyada qaarkood oo soo baxeen waxay yiraahdeen China ayaa ugu horeysa Hindiya ku xigta laakiin reportyo fara badan oo soo baxay waxaa la yiri China ayaa ugu cryptocurrency badan adduunka. lana waa taqaaniin exchange-yada waaweyn oo dhan badankood waxa weeye Chinese baa iskale. kuwa ugu horeeyana waa Binance oo dugtay. marka exchange badan baa jira oo leadership-ka top-ka ah oo Chinese iska leeyihiin. walidaalika waxa weeye yani waa wax dabiici ah in la yiraahdo China ayaa dawladda koowaad ama dawladda labaad ah marka la eego leadership-ka cryptocurrency-ga. marka tan Hindiya ka hadlaya inay tahay imka suuq kamid ah suuqyada adduunka ugu waaweyn ee cryptocurrency-ga ah. Hindiduna aad bay u maalgashadaan cryptocurrency-ga waliba marka la eego Hindiya dawladahan la yiraahdo mantiqadan dhexda iyo koonfurta Asia marka la eego Hindiya waxa weeye waa suuq ugu fiican ee cryptocurrency-ga laga shaqeysto. inkastoo report soo baxay oo yiri Hindiya waxay kamid tahay dawladaha iqtisaadkoodu aan la ictiraafsanayn marka laga hadlayo cryptocurrency-ga yani waxay ku leeyihiin muctaraf ma aha yani lama ictiraafsana laakiin sax ma aha oo baaragta 20% marka la eego iyaga ayaaba yani leadership-ka ah. report wuxuu yiri Hindiya iyada hogaaminaysay waqtigii u dhaxeeyay July 22 iyo June 23 yani sanadkaas oo dhan Hindiya ayaa hogaaminaysay qaaradda Aasiya marka la eego cryptocurrency-ga. Hindiduna waa very clever dhinaca technology-da marka la eego waliba dhinaca IT-ga waa dad very clever weeye haddii la eego dhinaca IT-ga. cryptocurrency-guna kama foga IT laana qofka moogtahay cryptada xariifka ku ah laabudda inuu de kombiyuutarada wax ka yaqaano iyo mobilada iyo waxyaalaha iyo marka Hindidu waxa weeye dhinacan IT-gana waa dad tagay weeye cryptadana hayaabin marka lagu yiraahdo Hindiya waxa weeye dawladda ugu horeeya. khabarka ku xiga wuxuu ka imanayaa Brazil. طبعا markaad Brazil tirahdid qof kasta uu soo boodaya xornaya Neymar iyo kubadihii baa la xusuusanaya laakiin nagu waxaan ka hadlaynaa cryptocurrency. Neymar hadda ka hadli mayno laakiin waxaa laga hadlayaa cryptocurrency. nimanka shuruucaha iyo qawaaniinta soo saara Brazil waxay rabaan inay ku daraan cryptocurrency-ga assetyada ay dadku leeyihiin assetyada ee shacabku leeyahay yani in cryptada laga dhigo wax asset ah oo qofku haysan karo oo dawladuna la ogtahay.
taas micnaheedu waxa weeye security fiican baa la siinayaa qofka moogtahay kribtada haysta secure yani hadduu maalan coinan iibsado oo meel gashado oo dowladdu ku ogtahay oo cashuurtiisa bixiyo waxa weeye waa secure haddii berito waxaa laga dhaco dowladda ayaa usoo celinaysa yani macnaha hadalku saasay ujeedaan mashruuca mar hore ayay bilaabeen laakiin waxaad moodaa iminka inay go-aan ka gaari doonaan intaa yar baynu kusoo dhammaynay khabarka waa soo dhaweynayna walaalaha markasta nagu soo biira dabcan asxaabtii iyo ardaydii iyo dadkii weligood ka ganacsanayey aad bay u danaynayaan inay akhbaaraha ula socdaan weliba maalmaha kan isha ku haya wararka laana fundamentalka marka la eego akhbaaraha iyo newska waxyaalahaas kribtada wax badan bay ka bedelaan marka insha Allah dhinacaana ku dadaala aad ba u mahadsantiin insha Allah ilaa inta aynu mar dambe sali doono barakallahu fiikum wa ana walaalkiin Axmed Aadan weeye wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh